بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي لدلهانتين بميل كستو جوجتان كسو دوادا برنامجكيني دور جوجتا barnaamijkeenan duurjoogta waxaynu ku soo qaadan doonaa ugaarsadayaasha khatarta ah. Ugaarsadayaashan khatartii waa kuwa ku nool seeraha weyn ee loo yaqaano Serengeti ee dhulka Tansaaniya. Balse marka hore, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino. una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinaha iyaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale, like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaaraan. Fadlan, haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. inta haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. goobtan ay ku nool yihiin ugaarsadayaasha khatarta ahi waa Serengeti, dhulka Tansaaniya. waa goob aad u cajiib badan, dhirteedu ay shabbahayso dhirta ku taalla gobollo ka mid ah ama geyiga Soomaalida. waxaa ku yaalla geedaha loo yaqaano qudhaca, galoolka, sogsogta iyo weliba geeda kaloo fara badan. kani waa aar 12 sano da'diisu tahay. waa boqorka aaggan ka taliya. waxa uu leeyahay xuduud aad u weyn oo gaadhaysa ilaa 5 mayl. wuxuu boqor u yahay raxan gaadhaysa 9. noloshoodu waxay ku tiirsan tahay seerahan. waxaanay leeyihiin nolol maalmeed u gooniya. aarkan waxaa ka muuqda gabow oo da'diisu haatan waxay gaadhay 12 sano. waxaanay noolaadaan aararku intooda badani inta u dhaxaysa 10 sano ilaa 14 sano. midh ayaa dhaafa oo gaadha 16 amaba 18, laakiinse kuwaasu waa qaar dhifdhif ah. tani waa ugaarsato cajiib ah, waana gool qaangaadh ah,
taasi oo rabta in ay ka mid noqoto qoyska halkan ku nool ee uu libaaxanu amro. Waxay ku jirtaa amaraad goobaysa doondoonka ay la midowdo. balse hadda waxay u dhaqaaqday oo iyana aan ka badhnayn in ay u socoto nolol maalmeedkeeda. Waxay heshay lo' dibadeed yar. lo' dibadeedkan yari waa hallow, waxaanu ka lumay kooxdiisii ahayd lo' dibadeedka. lo' dibadeedkan yar iyo goosha waxaa dhex maraya dagaal la yaab leh oo gooshu ay iyada laftigeegu nafteeda u baqatay. midhkan yar ee lo' dibadeedkii wuxuu durbo ku soo qaaday goosha inuu iska difaaco oo uu weliba eryado. gooshu waxay kaga meeraysatay dhirta, balse waxay la baagan tahay jab weyn. gooshu waxay rabtaa in ay gaaddo la ugaadhsadaha. la ugaadhsaduhu isagu wuu iska caabinayaa oo uu iska difaacayaa gooshani. akhirkiina gooshu way ku guulaysatay waana qabatay. iyadu gooshan wuxuu ugaadhsatay waa gool soo galaytiya. waxaa aagga yimi aarkii xuduudan lahaa, waanay ka tagtay raqdeedii oo way ku qasban tahay in ay dhuumato.
aarku markii uu soo gaadhayba waxa uu raadinayaa ama eegayaa hareeraha, waxaanu la yaaban yahay ugaadhan ciddii ugaarsatay. Waxoogay ayuu ku dul meeraysanayaa, geesaha ayuu fiirinayaa, balse ugaadhii lo'-dibadeedka yar ahayd uu qaadanayaa, waxaanu ula kacayaa xagga duurka. Gooshii soo galeytiga ahayd weli iyadu way iska qarinaysaa oo duurka ayay iskaga qarinaysaa. Isagoo xagga duurka ayuu ula kacay lo'-dibadeedkii yaraa. Hadda gooshii iyo aarkii foodda ayay isa saareen. Durba aarku uu garanayaa inay tani ahayd mid soo galeytiya, umana oggolaanayo inay dhulkiisa soo joogto. Aarkii waa uu eryaday, waxaanu doonayaa in uu ka saaro xuduuddiisa. Aakhirkiina xataa may calfan wixii ay ugaarsatay. Fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo taageerayaasha channelkan. Subscribe garayso, guji si aad ula socoto muuqaalada aanu mar walba soo gelino, una noqoto qofka ugu horeeya ee helaya warbixinahayaga. Dooro calaamadda jeleska amba gambaleelka. Sidoo kale like-ta ku dhufo oo share garee muuqaaladayada si ay dad badan u gaadhaan. Fadlan haddii ay kula tahay inaad fakarkaaga ka dhiibato ama aad fakarkayaga nagu taageeri karayso, qaybta commentiga noogu reeb fariin ama aragtidaada ka dhiibo. Intaa haddaad samayso aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay daawadayaal, intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna. Inta aynu ku kulmi doonno qaybta dambe iyo weliba seeraha weyn ee Serengeti dhulka Tansaaniya, waxaanu dhammaanteedii kaga tegaynaa nabadgelyo.